وري دغيست بو قريشي ninkan waan isla daalnay maxameda warkiisu uu ina daaliye ragii waaweynaana hadda waxay bilaabeen ba inay raacaan xamsi iyo umar iyo ragii waaweynaaba socda waxaan keenayaa iga dhageyst iyo ogolaada nin aftahanaan ahay inaan maxamed u tago oo la kulmo oo la hadlo iyo ogolaada arimo waaweyn baan u bandhigayaa maxamed arintaana iga dhageyst arintii buu sheegay waan ogol lahay bay yiraahdeen dhaqaaq oo bal waanta la soo gal uu soo dhaqaaqay odagii nabigu u yimid calayhi salaatu wassalaam uu soo hor fadhiistay hadalku dabcinaya hadda yabna akhi inankii walaalkayo inaadeer i dhagayso waxaa tahay nin annaka naga mida oo sharaf iyo manzilad iyo cashiiradiisa iyo qaraabadiisa la yaqaano ayaad nasabkaaga waa naqaana waxaad noola timid arin qoomkaaga ka yaabisay argagixisay jamaacadoodii iyo ururkoogii waad ku kala kaxaysay caqligoogii waad ceebaysay ilaahayaashoodii waad ceebaysay diintoodii waad ceebaysay aabbayaashoodii dhintayna waxaad tiri naar bay galayaan asnaan bay caabudayeen i dhagayso arrin baan kula socdaa nebigu waxa uu yidhi qul yaa abalwaliid asmac hadal abalwaliidow waan ku dhagaysani edebta daawo qof hadda kula hadlaya si wanaagsan dhagayso nebigu waxa ku yidhi hadal waan ku dhagaysan waxa uu yidhi yabna akhi inankii walaalkayo arintan aad wadatid iyo diintan aad wadatid haddaad ku rabtid lacag aad ku rabtid maal jamacnaa laka min amwaalina xataa takuuna akarana maala waan kuu ururina haddaad lacag rabtid oo doonaysid waxaad dacwadan iyo lacag baad ku rabta miya haddii aad rabtid lacag baan kuu ururinaynaa ilaa aad noqotid ninka noogu lacagta badan aad ka noqonaysid wain kunta turiidu sharafan haddii aad rabtid sharaf iyo mansilad iyo sayid inaad ku noqotidna sayid baan kaa dhigaynaa sawadnaaka calayna korkayaga sayid baan noo noqon xataa laa naqtaca amran duunak arrinna goosani mayna adiga la'aanta haddii aad rabtid boqornimo mallaknaaka calayna boqor baanu kaa dhig haddii uu yahay waxaan ku imanaya ee leedahay waxyi baa ii imanayo jibriil baa ii yimaado oo waxani jin hadduu yahay aad iska dawayn karayna noo sheeg dhakhtar baan kuu raadinaynaa waanu ku soo dawayn wabadalna fiihi min amwaalina maal badan baan dhiibaynaa si lagu daweeyo jinka lagaaga daweeyo waxaa laga yaabaa inuu ka adag yahay warkiisiibuu watay lacagta sharafka maalka maxayga dhinacan nin kale daciifa iska qaadan lahaa ma iska raaci lahaa nebi maxamed ilaahay baa soo diray rasuulkii ilaahay weeyaan calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ku yidhi aqad faragta yaa abalwaliid warkii ma dhammaysay abalwaliidow kuma goyn hadalka nebigu intaa u dhegaysanayay dhegayso baatil baad sheeg waxa nebigu ma oranayn calayhi salaatu wasalaam uu dhegaystay uu dhegaysanayey maad ka faaruqday hadalkii ma dhammaysayba nebigu haa buu yidhi nebigu waxa uu yidhi fasmac minii anigana i dhegayso anigana i dhegayso buu yidhi nebigu suurad fusilat ayuu akhriyayaa waa hadalkii ilaahay nebi maxamed oo akhriyayo codkiisa maxaad u malayn uu jirircoonaya ninkani waxay ka warramaysaa aayaadka ilaahay ayay ka warramaysaa